cadowga Soomaaliya leedahay waa iyaga markaan leenahay xasilinta xamar waxaan rabnaa inaan kala saarno dadka dhibka wada iyo dadka qoryaha u wata inay iyagu isku difaacaan marka haddii aan la dagaalano qodaan dhibka wada waa in horta aan qolada xamar hubka ku wadata oo jidadka waaweyn ku wadata hubka weliba dee aan loo baahnayn oo dee dagaalada culus lagu galo in laga qaado oo ama ay guryahooda dhigtaan inta aan maxaan ku raahdaa aan ka soo jeesanayno cadowga aan leenahay oo shabaabka ah markii aan cadowgaas ka soo jeesanno kulli waa gaarsiinaynaa Soomaaliya oo idil hubka dhigis maxaa yeelay maxaa hub loo haystaa haddii dawladdu ay keenayso nabad oo dawladdu ay cadaalad samaynayso oo qofkii dhib sheeganayo uu yaqaano meeluu ku dacwoodo qofku muxuu hub ku falayaa marka taasi waa level kale oo aan rabnaa degmooyinka iyo gobollada aan gaarsiino laakiin midda aan samayno waxay tahay hubka sharci darrada lagu wato magaalada Muqdisho oo weliba jidadka waaweyn oo la yaqaano dadka hubkaas wata inaysan hubkaas u baahnayn تقول له عيب وضعك تنكو خوا دب أخلص وطورة هيدا دب كذا الورهاد تقول له عن ذاته ستو وقليل أيه بس كديس بس ينيو أنو أصحاب باصرية تقول له أنا عايز وحوي إنه قليله أنا عايز وحوي أنا وناس هنا أصحاب بدن بعرف يا من بس ثلاثة